نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa warbaahinta madaxa bannaan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan inta ku sugan caasimadda Hargeysa. waxaynu nahay saaxiibo isku dhow mar walba halkii laydinku soo xidhi jiray yar waa laygu soo xidhay marka waa soo wada dhadhaminaan malaynaya marka waa mahadsantihiin. kadib 30 maalmood oo aan ku xidhnaa xabsiga Madheera iyo 7 maalmood oo soo dimaray maanta ilaahay nabad qabi nagu soo gaarsiiyay inaan halkan isku wareysanay noo sahlay baan u mahadnaqayaa. waxaan ku bilaabayaa gabay uu lahaa ugaas cilmi warfaa oo la yidhaha nin ilaray nin igu lagaadsaday iyo nin ilamaanayey iyo nimaan lurkayga jeclayn libina ii diidan iyo nimuu lihin dhigay halkii rag isku laacayay intaasuu isagu laqan yahay loolkii ii xigaye nin wallow lufkaad igu lahayd waa hadhow lulo. ugaas cilmi warfaa ayaan intaa ka soo xigtay. qodobka koowaad waxaan u mahadnaqayaa qoyskayga waalidkay walaashay oo aqalkayda loo daatay xaasaskayga iyo ubadkayga oo culays badan uu ku dhacay dartay adkaysi badanna muujiyey. aad iyo aad badan mahadsanti baan leh. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shacabkaan matalo ay soo doortay codkii soo siiyey ee gobolka Awdal. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba intooda dulmiga iyo tacaddiga diidan meel kastoo joogaanba. waxaan iyagana u mahadnaqayaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo intii karaankooga difaacay dastuurka qaranka balse aan wax tallaabo ah ka qaaday dastuur jebinta 3 sano golaha fadhiga ay ku kacaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi uu hogaamiyo. iyagana waa mahadnaqayaa. waxaan u mahadnaqayaa maxkamadda sare oo intii karaankeyga amaad aragtay dadaalaysa inay mar kasta oo maad aragtay dastuurka ay jebiso xukuumadda oo laisku yaaci gaadhay iyaduna dadka kala badbaadisa. waa u mahadnaqayaa. waxaan u mahadnaqayaa hogaamiyeyaasha mucaaradka isbaahaysiga gaar ahaan waddani iyo ururka ka intaasoo dhan aad iyo aad ugu mahadsan. intaa markaan ka imaado ujeeddada xariggaygu waxaa laga lahaa ujeeddooyin waaweyn bay xukuumadda ku lahayd. waxaa la doonayay in awda laga rido colaad la mida tii laascaanood baa la doonayay. waxaa la doonayay in lagu helo cimri dheer iyo in laga dhigto jid doorashada lagu diido. waxaa la doonayay in la geliyo deegaankayga xaalad amni darro oo meesha ka saarta doodda siyaasadeed ee aan qabno. waayo ma jirin dembi aan galay, ma jirin dembi aan qaran ka galay, ma jirin dembi aan qof ka galay oo aan xadhi ku mitaysan karayn. waxaa la doonayaa waa kuma maxamed abi maxamed abi muxuu doonayaa baa la isweydiinayaa. waxaan u sheegayaa ma yihiin nin aragtida uu qabo xadhig iyo caga juglayn uga tanaasuli kara. waan ugu celinayaa in badanna waan u qeexay. ma yihi nin dagaal loo haliilayo iyo dhib waddanka laga rido lagu xalaalaysan karo aniga liigama heli kartaan.
maxamed abiib waxaan aaminsanahay aragtidii mahatma gaandi baan anigu aaminsanahay in badanna warbaahintood wayga maqashay anugu waxa aan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajinna aan doonayo aragtidaan aaminsanahay diyaar baan ahay xarig iska daaya inaan u dhintaan jecla laakiin inaan qofku dilo ma doonayo aragtidaan aaminsanahay waayo hadduu qofku doonayo inuu qof dilo dee waa dilaadee laakiin nooleeyo maaha sidaa darteed anu dadku inay nolol helaan baan doonayaa taasaan u taaganahay in aniga lii dilay waan ogolahay waxaanan leehay way xidheen ayar bay xidheen mar horena waan sheegeen haddaad bareerii dilaysaan iyo haddaa afka soo duubanaysaan diyaar baana haddiise ay sii socoto kutumashada sharciga iyo tacaddigu waa waajib in cid kasta oo lagu xadgudbayaa ay istifaacdo diinta islaamkaana saawo qofkuu istifaacaya walaalayaal dan yarta ayaanu qalbi jilicsanahay ee inta kibirsan uma qalbi jilicsani uma naxo caadifadaydu inta liidata ayay la jirtaa siyaasaddaydase caqliga ayaa xukuma garaadka ayaa xukuma calooshun ma hogaamisana siyaasaddayda waxaan u taaganahay cadaalad iyo sinaan waxaan doonayaa dal iyo dad isleh oo ujeeddo ku midaysan baan doonayaa oo aan loo qayqaybin qabiil iyo xaafad waxaan doonayaa dalaan madaxdiisu ka ceeshin masaakiintiisuna aanay ku dhex gaajoonin baan doonayaa dadkooda ladan una sharcigu qaban ka miskiinkaana xabsiyada laga buuxiyo dal sharciyadiisa iyo qawaaniintiisa aan keliya lagu fulin dadka masaakiintaan doonayaa dal isla xisaabtanku xalaal iyo sharci ka yahay baan doonayaa intaasba waxaa iga maraga sida aan dalkiiyo dadka ugu shaqeeyey ee aan danaha shacabka uga doodayey intii aan xilka hayay gabigii afkuriyaan kusoo gabagabeynaya intaa waxaa leeyahay yay noqon baahidu baqay oo anaa riday baga iyo kufaanfaan baacsa iyo tafiirgo ha ahaato baahidu kasbasaasay subagii biixi jabay kabkabiddii hambukooday baantii bulsho licda kicinteed intaana afkuriyaa loo naxariistay ayaan ka soo ammaanaysanay sidaana damiirkayga ayaa ii sheegaya xaalka dalku haddii aan tusaale yar idinka siinayana waxaa ka mid ah xabsiga aan ku jiray ee mandheera waxaa ku xidhnaa 700 oo qof kuma jirin mas-uul hantida ummadda boobay oo la xidhay kuma jirin mas-uul qof shacaba si qalada ugu xadgudbay kuma jirin xaakin intuu xukunka xumeeyey ee ummadda si cadaalad u xukumi waayey la xidhay kuma jirin kuwii ciidanka qaranka jebiyey kuma jirno xabsiga mandheero qof kama xidhnayn kuwii dalkan xuduudihiisa soo koobayna hal qof kama xidhnayn waxaa ku xidhnaa dad masaakiina oo qaarkood dulmiyo cadcad oo dalkiisa lagu soo xukumay baa ku xidhnaa intaasaana tusaaleyda ku filan qodobka saddexaad waxaan u gudbayaa reer odol baan u gudbayaan la hadlaya muuse xarigga maxamed abiib maaluu ii jeeday mise reer odol buu jeeday labadeeda kuu jeeday qodobada soo socda caddaynaya muuse oo boora ma jooga inuu xariggayga amro ujeeddo nooco ayuu ka lahaa maaliga ayuu ii jeeday mise reer awdal ayuu jeeday muuse wuxuu jeeday reer awdal buu jeeday waayo xariggaygu wuxuu amri karayey isagoo hargeysa jooga wuxuu amri karayey isagoo maad aragtay xarunta madaxtooyada jooguu amri karayey muuse iyadoo laga sugayay inuu raaligelinayaa boolojaas ka bixiyo godobtii iyo dembiguu ka galay guud ahaan reer awdal oo dhan ee uu ku sameeyey ugaaskoodii xabadda noolnool la dhacay markuu boor ma tegey halkii abolojaas laga sugayey wuxuu yidhi wardada bolojaas u qalma ma tiidine kan kale diba meelahan ka hadlaa baan xidhayaa amar buu soo bixiyaanu xidhay sidaa darteed aniga mu jeedin idinku idiin jeeda wuxuu ahaa xariggaasi waxba ma tiidina isagoo cod doonaya inu aniga xidho maanta wuxuu ahaa waxba ma tiidina waxbana idinkama baahnin cod haddaan idinka baahda bay ahayd waan idinka iibsan ama xoog baan idinkaga qaadanaya markaa kuwiinna wax gara iyo xidhxidho ujeeddada taasina waxay caddaynaysaa inuu reer awdal ujeeday bay caddaynaysaa un aniga ii jeeday
haddaan wax intaa ka badan idinka baahdana wuxuu yidhi sidaan idin maali jiray baan idin maalaya waa garanayaayo kolba doqon baan boorima ka soo qaadanaya ujeedooyinka aan leeyahay ka dhex fuliyaa soo qaadanaya wixii noole aragtideeda